Okay, soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan idin tuso in maaragtay lacagaha la isku bedelayo oo currency exchange-ga inaad ku samayn kartid Excel ayadoo live ah. Excelna aad kala socon kartid adigoo aan website iyo internet iyo waxba aan maaragtay aan gelin. Hal mar keliya aad isdhibaysaa, waxaad isku xiraysaa kabacdina halkaas kala soconaysaa. Hadda waxaa idin tusayaa qaybta ah markii already la isku xiro sida maaragtay wax u arkaysid. Okay, haddaan raba hadda US dollar inaan Kenyan shilling ogaado maanta dollarka intuu joogo, hal maraan maaragtay soo ogaanayaa rate-ka. Tusaale ahaan hadda halkan rate ugu jira dollarkii waxaa waaye intaanu marayaa Kenya waa 106 Kenyan shilling ah. Halkii dollar Ethiopia wuxuu marayaa 35.342. So haddii aad isdhaahdo information ku kiimaanaya information-kan wuxuu ku xiran yahay live internet-ka. haddaan tagno live-kan ku xiran marka inta la update garayo oo website-kaasi la update garayo kanna waa update gareysmaya slide la hadda isbedelaan. hadaayato it wasn't halkan 17 ma ahayn, wax kale ahayd, inta 42 ma ahayn, something kale ahayd. waxbaa isbedelay marka halkaa markay ka bedelaan halkaana waa isbedelaya. intana intay kusii xiran tahay, tanay kusii xiran tahay oo meesha ii taala. tusaale ahaan hadda dii aan idin tuso hadda Ethiopia, hadda idin tuso Ethiopian bir waa ujeedaa halkii dollar wuxuu marayaa 35.34 halkan website-kana soo fiiri marka Ethiopia haddaan fiirino Ethiopian bir waa kana 35.34 maaragtay. marka kuwan waxa waa isku xiran marka haddaa hal mar inta saano kale isugu soo xirtid ay maaragtay waxa ay ku sarab gareysan yihiin intaa kala soconay. tusaale ahaan waxaa leedahay equals this one times waxaa ku dhufanaysaa rate-kan oo Kenya ah, waxaa ku dhufanaysaa interalada marka 45 dollar das Kenya waxaa lagu sarifayaa $4,806 shilling. haddaan double click garay halkaa fiiri 20 muxuu marayaa 2,136 Kenya shilling. boqolkii hadda wuxuu marayaa 10,681 Kenya shilling. mabaan marka xagga marka inta internetka markuu hadda inta wax iska bedelaan rate-ka halkaana waa isbedelaysaa. meeshaan hadda waxaa laga yaabaa ama inay kor aado ama inay hoos aado. mabaan waa live daara kana waa sameynaynaa equals aan leenahay this times rate-kan tegaynaa oo Ethiopian-ka ahay intaan leenahay. marka waa kana haddaa haysa $1,599 oo US ah haddaa haysatid Ethiopian bir waxaa weeye 56,511. marka aan kuwada apply gareyno kontonkii intaasuu marayaa, boqolkii waa 3,534 Ethiopian bir. hadda halkan dollarkii marka waxaa dollarkii waa aragtaan dollarkii waa 35.34 oo bir ah. marka hal maraa isku xirtay, hal maraa set up gareysay, waa live. markay xagga rate ka bedelmaan halkan waxbaa isbedelaya. marka any lacag markaas inta gelinaysa amaantiga markaas rabtid inaad aragtid. haddaa dhahda halkan waxaa rabaa $2 inta u dhigmato waa aragtaa 777. marka halkaasaa ka maamulaysaa hadday Ethiopian bir aa rabtid, haddaa Ethiopia maaragtay US iyo aa rabtid iyo Kenyan shilling. xaqiiq waxaa ah in lacag aa rabtid aa ku xiri kartaa saan ugu xiran. hadda kuwaan oo dhan meesha ku jira aa ku xiri kartaa oo aa arki kartaa. marka kuwa aan highlight garay waa kuwa aan fiiriye marar maaragta sida ay maaragtay Chinese yuan hadda tusaale ahaan halkii dollar wuxuu marayaa 7 Chinese yuan ah. halkii dollar 7 u dhigmaa Chinese yuan ah. marka hal maraa isdhibaysaa oo aad wixii isku xirxiraysaa, hadhowna halkaana ka gelinaysaa amaantiga. waxaa leedahay $1 haddaa haysto waa meeqo, waa 106 Kenya shilling. okay, haddaa inta haysto
$2,577 meeqa Kenya maaragtay shilin ah waatana markuu arta $275,267 Kenya shilin maaragtay lagu bedelaya lacag intaan haddaa la imaatid intaana maaragtay qiimeedu yahay maanta marka waqti badan idinkama qaadan waxaana idin tusay in si toos ah maaragtay oo la socon kartid adoo isticmaalaya Excel lacagaha maaragtay currency exchange-ga say maaragtay uba bedelmayaan aan isticmaali kartid Excel halkaasna aad kala socon kartid waxaa inoo balan next